وقتها داوديل ولي waxaan gudaha ugu jirnaa barnaamijkeeni wargelin oo kala socon kartid website-yada bartamaha.com raxanred.com calanka.com somalinewspost.com iyo website-yada kale oo linkigooda ka heli kartid website-ka wargelin.com markaa gashid waxaan rabnaa hadda inaan idin soo gudbino sheeko naxdin leh oo yaab leh oo idin fijicinaysa waa maxay waa sheeko dhacday maalin dhawad kana dhacday magaalada Afgooy waxaa la dilay takhtar Soomaaliyeed aan gadaal idin kugu celiyo waa takhtar Soomaaliyeed takhtarka kaliya ee magaalada Afgooy sidana loo sheegay takhtarkan waxa loo dilay kadib markii la yiri sigaar uu cabay dami oo uu diiday baas baa la marsiiyay waxaan halkaas ku dhintay takhtarka waxaana ku dhaawacmay 3 qof oo kale sheekadan oo sheekada marka aad maqashid as leedahay waxaan wax dhici kar ma laha waa wax filim yani dadka qaar kood marka ay yiraahdaan waxyaalahan kale waa waxyaalaha maskaxdaada aan ka dhaadhicin waxaan arintan ka wareysanay wariyaha bartamaha ee Raxanreeb u jooga magaalada Muqdisho Cabdirasaaq Kambala waxaana weydiinay arintan yaab kale ma arin dhacdayba mise waa arin ku tiri ku tayna marka hadda waxa khadka noogu jira Cabdirasaaq Kambala Cabdirasaaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee ayay u dhacday arintani dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad murugo u leh marna su'aalo badan ay ka dhalatay kadib markii ciidamo ka tirsan ururka Xisbul Islaam gaar ahaan askari ka tirsan Xisbul Islaam oo toogasho bareera uu u dhintay gudaha degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose qof rayida gaar ahaan dhakhtar caan ka ah degmadaasi 3 ruux oo kalena uu dhaawac u geystay askariga ayaa waxaa la xaqiijiyay in uu la hadlay ninka dhakhtarka oo lagu magacaabi jiray Dr. Bidaarey kaasi oo ka shaqeynaya rug caafimaad oo ku taala degmada Afgooy dhakhtarka xilliga hadalka uu jeedinayay waxa uu gacanta ku haystay sigaar uu cabayay uu shidnaa taasi uu askariga ka dhacay in uu ka dambiyo isla markaana aanu ku cabin wadada xilligaasi kadib dhakhtarkii waxa uu ku dhawaaqay inay dadka hareerihiisa joogay maqlayeen oo ahaa in aanu shaqo ku lahayn sigaar uu gacantiisa ku haysto isla markaana goobaha ku dhow lagu iibinayo sigaar isaguna uu ka soo bilaabo halkaasi askariga kadib askarigii waxaa la xaqiijiyay in rasaas uu si bareera dhakhtarkii ula beegsaday taasi oo sababtay in dhakhtarku goobta uu ku geeriyoodo 3 ruux oo rayid ah oo goob boosteejo ah gawaari ka raacaysan halkaasi dhaawac ay ka soo gaareen maamulka Xisbul Islaam degmada Afgooy waxay sheegeen in ay arrintaasi ka cudur daaranayaan askarigana xabsi la dhigay lana la xisaabtami doono walow warar lagu kalsoon yahay oo laga helay ehelada ninka dhakhtarka la dilay halkaasi la sheegay in askarigii laga daayay oo aanu sharciga la marsiinin xilligana dhakhtarkii uu geeriyooday dadkii dhaawacyadana isbitaal ay yaalaan marka la dilay takhtarka Allahu naxariiste xagee ayuu joogay dhakhtarka waxa uu ka howlgalayay rug caafimaad oo ku taala gudaha degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose xilligii uu ka soo dhaqaaqay gawaarida goob laga raacana uu joogay meel yar u dhow ayuu xilligaasi taagnaa kadibna waxaa la xaqiijiyay inay isku dhaceen askarigaasi Xisbul Islaam ka tirsan oo ku amray in uu damiyo sigaar gacantiisa ku haystay sidaasina rasaasta ugu beegsaday walow maamulka ay sheegteen in askariga la amray inuu damiyo sigaarka balse qoral uu kula dhigay taasi uu dadka xariiraha taagnaa ay bulshada iyo saxaafadda u sheegeen in dhacdadaas ay tahay been abuur isla markaana askariga si bareera dilkaasi u geystay wallahi waa arin aad iyo aad looga naxo Cabdirasaaq oo aan ku weydiiyay su'aasha kale sigaarka cabitaankiisa mamnuuc miyuu ka yahay magaalada Afgooy